kulankani oo ay yeesheen saraakiisha qaybta 27aad iyo maxkamadda qaybta 27aad ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa mahadcelin loo mahadcelinayo maxkamadda qaybta 27aad oo maalmahani degmada Buulaburda u joogtay howlo shaqo intii ay ku sugnayd degmada waxa ay kulamo la yeelatay saraakiisha qaybta maamulka degmada odayaasha dhaqanka ayagoona kula dardaarmay hawsha ay hayaan oo ah amniga degmada in ay sii laabaan maadaama degmada Buulaburda ay ka mid tahay magaalooyinka ugu amniga badan Soomaaliya maxkamadda ayaa intii ay ku sugnayd degmada waxa ay tababaro ku saabsan sidii loo baaro dambiyada waxa ay siineysay ciidamada militariga booliska iyo nabad sugidda taliyaha qaybta 27aad General Maxamed Maxamuud Calaso Tradisho ayaa u mahadceliyay maxkamadda qaybta 27aad iyo maxkamadda sare isagoona ku amaanay shaqooyinka ay qabtaan kulana dardaarmay inay sii laabaan maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad oo nala joogtay maalmahan shaqo aad u ballaaran ka qabatay deegaankan Buulaburte oo maxaan ku yiraahdaa ay soo degtay qaybta 27aad oo saldhigeedu yahay halkan sidoo kale wacyigelin ciidamada ay u sameeyeen tababaro ciidamada hadda u socda oo ay u sameeyeen sidoo kale maamulka degmada oo iyadana si wanaagsan maxaan ku yiraahdaa ay howl badan ula qabteen oo ay xogaa wax haysnaayeen sidoo kale odayaasha dhaqanka oo lala kulmay iyo dadka shacabka ah oo degmada si fiican u soo dhaweeyay marxabeynta iyo maxaan ku yiraahdaa rabitaanka dawladnimo iyo rabitaanka sharciga inuu sareeyo ay muujiyeen shacabka degmada Buulaburte iyo maamulkooda iyo odayaashooda dhaqanka ciidamada kala duwan ee amniga oo iyagana maxaan ku yiraahdaa ay maxkamaddu u sameysay wacyigelin badan maxkamadda qaybta 27aad waxay ka soo shaqeysaa goobo badan oo qaybta ka baxsan waxayna ku shaqeysaa waliba magaca qaybta 27aad taas waa uga mahadcelinayaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sida iyo maxkamadda qaybta 27aadba howlkarnimada ay muujisay maxkamadda ciidamada qaybta 27aad iyo sharafka iyo wanaaga ay maxaan ku yiraahdaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sida ay siisay maadaama howlwadeenadii maxkamadda ciidamada qalabka siday qaybta 27aad ay meel walba ka howlgalayaan adana inay wataan magacoodii oo qaybta 27aad ah sharaf weyn ay u tahay qaybta 27aad sharcigana waxaan leenahay mar walba aad ayaan u garab taaganahay hadaan nahay qaybta 27aad taas waxaad ka fahmi kartaa maxkamadda ciidamada qaybta 27aad ayaa meel walba ka shaqeynaysa waxaan leeyahay waa mahadsantiin shaqadii aad nala qabateen maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad salaan sharaf lana waxaan u direynaa maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxaan leeyahay xaqiiqatan sharcigu cid walba ayuu ka sareeyaa waxaan rabnaa sharciga iyo cadaaladii in la iswaafajiyo insha Allah annagoo og inaad cadaaladda faleysaan sharcigana ku taagantihiin xeer ilaaliyaha maxkamadda qaybta 27aad Gaashaale Maxamed Cabduqaadir iyo Dhamme Maxamed Soomo Kulmiye oo ah garsooraha maxkamadda qaybta 27aad ayaa dhankoodaba u mahadceliyay kuna amaanay taliyaha qaybta 27aad Tradisho sida wanaagsan uu mar waliba u garab taagan yahay mar walba maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay heegan u tahay har iyo habeen u soo jeedaa inay la shaqeyso saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan gaar ahaan qaybta 27aad markii hore taliyahan waxa isla shaqeynaa asigoo taliye guuta ah oo qaybtana ay tahay qaybta 27aad haddana waxa isla shaqeynaa alxamdulillah asigoo taliye oo qayb ah anakana maxkamadii aan nahay markii hore beledweynan joognay waa iskala shaqeynay ilaa furmaha isla tageynay haddana alxamdulillah waxaan joognaa waa Buulaburda qaybta 27aad hadduu alleedman maxkamadana insha Allah xarunteeda intay noqon doontaa maadaama taliska intuu yahay maxkamaduna intay qaybteeda noqon doontaa hadduu Ilaahay raado tan kalena waa ugu mahadcelinaynaa taliyaha sidoo soo dhaweynta uu noo sameeyay waxaan dhex fadhinaa qaybta 27aad taliskeedii waxaan isla fadhinaa taliyihii qaybta ugu sareeyay ee qaybta maxkamaddii qaybtana way joogtaa taa iyada waxaan leeyahay
waa nasiib ee maanta qeybaha intooda kale aysan haysan inaan taliskeeni joogno in saraakiishii qaybta iyo sharci ilaalintii qaybtaba ay wada joogaan waa nasiib ilaahay uu nasiib hadii aan qaybtan allan ugu mahadinayna isbuucyada hadda la soo baxay shaqada quruxda badan oo buluburta ka dhacday oo amirta dawladnimo ah haduusan taliyaha qaybta iyo saraakiisha qaybta ahaan lahayn wax hergal lahay ma lahayn aad iyo aad aan ugu mahad celinayaa kun iyo ka badan taliya waan ka qabnaa askari cali raage SNA radio degmada Buulaburde.